sanado badan oo ku siman dhowr iyo 20 sanadood oo magaalada Hargeysa caasimadu u ahayd Somaliland oo weli ixtiraaf ka helin dunida horumartay waxa ay ahayd mid si weyn uga soo kabatay burbur xoogan oo inta badan laga dhaxlay dagaaladii sokeeye ee Hargeysa iyo sidoo kale magaalooyin Somaliland kamid ka dhacay iyo sidoo kale dagaalkii lagula jiray رجيمكي محمد سياد برre hogaaminaya ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee sanam deegaanka madaafiicda iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee hubka oo hoy Hargeysa uu ahaa shacbigu waxay noqdeen kuwa si weyn uga sifeeyay dhagahooda isla markaana xilligan u babacdhigay sida ay Hargeysa u horumarin lahaayeen dhismayaasha wadooyinka goobaha ganacsi waxbarashada iyo sidoo kale goobaha caafimaadka ayaa dhamaantood ahaa kuwa dhulka lala samay xiliyadii dagaalka Hargeysa jawi ka duwan xiliyadaasi ayay hadda ku jirta oo midba mid u sii dhiibaysay isla markaana hor socod badan ka muuqdo dhismayaal dheer goobo waxbarasho caafimaad iyo sidoo kale goobaha ganacsi ayaa Hargeysa si weyn xilligan indhaha ugu soo jiidanaya marka aad gudaheeda marayso ganacsiga ayaa ka mid ah kuwa halbowla ee lagu dhabaraadeegay horumarintooda qurba joogtuna waxay noqdeen kuwa si weyn ugu soo dhiirada horumarinta magaaladooda dalalka shisheeye iyo sidoo kale dadkooduna waxay doorbideen inay ku dhiiradaan maalgashiga Hargeysa oo ah goob ammaan ah isla markaana ay ka qaaday xasilooni kala dambeyn iyo sidoo kale deganaansho si weyn ay ugu suura galayeen ciidamada noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale shacbiga Hargeysa ku dhaqan oo dhamaantood noqday kuwa iskaashanaya isla markaana dhan uga soo wada jeeda cid kasta wax yeelanaysa amniga iyo xasiloonida ka jirta Hargeysa iyo deegaano kale oo ka mid ah Somaliland waxaanay noqotay taasi mid si weyn u saamaxda inay Hargeysa ku soo dhiiradaan ajaanib kala duwan oo gudaha Hargeysa xilligan ka samaystay goobo ganacsi oo ay kala soo baxaan dhaqaale badan wadamada shisheeye ayaa dhankooda Hargeysa ku soo dhiiraday oo tiraba ku dhawaashan safaaradood ayaa Hargeysa ka binaysan xilligan safaaradaha Djibouti Ethiopia iyo Turkiga ayaa Hargeysa xilligan ka binaysan oo subax kasta ay u jarmaadaan dadyo kala duwan oo socdaal ugu aaday dalalkaasi waxa dib u dhis xooggan lagu sameeyay wadooyinka oo gaadiidku si habsamiya hadda isaga kala gudbayaan jidadka Hargeysa ka kala dhex goosha isbitaalada goobaha waxbarasho ayaa Hargeysa si weyn ugu soo badanaya isla markaana kobacoodu yahay kuwa la talaabsanaya kuwa dunida waxaanay taasi saamaxday in xilligan dad iyo badani ay ku soo dhiiradaan in waxbarasho iyo caafimaad Hargeysa u yimaadaan oo qaarkood ka soo kala socdaalayaan goobo kala duwan oo ka baxsan Somaliland halka kuwii kale ee u socdaali jiray dalka dibadiisuna ay noqdeen kuwa ku nagaaday dalkooda isla markaana ka helay waxbarasho iyo caafimaad tayo leh xiliyada habeenkii muuqaalka guud ee Hargeysa waa mid si weyn ku soo jiidanaya isla markaana markiiba ku siinaya jawaab ku aadan horumarka iyo sidoo kale bilicda horusocod ee Hargeysa xilligan ku talaabsatay goobo kala duwan oo Hargeysa gudaheeda ka mid ah ayaan socdaal ku maray si aan uga ogaado xogta dhabta ee goobahaasi oo intooda badan ah kuwa si weyn indhahayga u soo jiitay isla markaana muujinaya muuqaalo ku aadan hanaanka horusocod ee Hargeysa xilligan hore ugu talaabsatay halkani waa mid ka mid ah goobaha lagu jara timaha isla markaana lagu qurxiyo oo ay ka shaqeystaan dhalinyaro tiro badan isla markaana ka mid ah kuwa qayb ka qaatay horumarka iyo sidoo kale bilicda caasimadda Hargeysa qorsheegtu waa xilli habeenimada waxa lacag laga qaaday waxa lacag laga qaaday horta quudidka waa waka breedkaaga ku yaala $1 weeyaan medicine lagu raacina waa $2 xiirista haday noqotona waa $3 washing marka lagu raacina waa $4 waxa jira marka adeegyo kale oo aan inta ka baxsan oo meherad hayso waxa jira special face special haya steam sidii baa kamid ah xina balaag baa kamid ah katamkii baa kamid ah xiniya casaan marka adeegyadu fara badan yihiin oo waxa jira face oo kale waxa jira garkii kale qofkii qof way kala duwan tahay marka meherad qof walba adeeg gooni naga dalbada oo doonayo qaar baa ku neeyo jeelo kale noo mari qaar baa ku neeyo saliid noo mari meherad adeegyadu fara badan yihiin caruusidii kale hadaba in product dhalinyarada
magaalada Hargeysa ku nool ayaa dhammaantood xilligan kuu sheegaya marka aad la sheekaysato in horumarka Hargeysa ku socoto marka la barbar dhigo maraaxilkii aad ka soo martay inay tahay mid u horseedi karta in dhinacyo badan ay kaga horumarto magaalooyin kala dhigeeda oo xilligan ku yaala qaaradda Geeska Afrika. bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u mahadsantahay marka koowaad wariye Faysal magacaygu waa Ibrahim Sheekh Umar ku nool magaalada Hargeysa. marka waxbarashada Soomaaliland aad iyo aad bay markaa u kubacday gaar ahaan Hargeysa caasimadii oo markaa Soomaaliland ay isugu yimaadeen dhammaan goboladii waxa ka muuqda koboc aad u ballaaran xagga waxbarashada sanad walba markaa haddii uu fiirsana xataa wasaaradda waxbarashada oo kale sanad walba dugsiyada Soomaaliland waxa ka soo qalan jabiya dugsiyada hoose dhexe waxa ka soo qalan jabiya dad ku dhow imika ilaa 20,000 dugsiyada sare 10,000 ku dhow yihiin jaamacadaha sanad walba waxa ka soo qalan jabiya dad 5,000 kor u dhaafaya runtii haddaynu soo wareegno sanad walba Soomaaliland waxbarashada waxa ka qalan jabiya qaybaheeda kala duwan dad ilaa 40,000 ilaa 50,000 ku dhow sanadba sanad ka dambeeyana markaa way sii kordhayaan yaxyo kobacaas aad sheegtay Hargeysa xilligan ku talaabsan waxa sabab dhowr waxyaabood baa sabab ah takoowaad waxa sabab ah amniga Soomaaliland ka jira runtii meesha amni jiro ay nolol jirtaa marka Soomaaliland maadaama 20 sano u dambeeyay ay nabad ahayd runtii taas waxay kor u qaaday in marka heerka waxbarashadu ay kor u kaco imika kala hadii ay waqtiyadii dagaalada ama dagaalada sokeeye waddanka ka socdeen ama dagaaladii Soomaaliland dib loogu xoreynayay ay socdeen dadka waxbarashada way ka kala gooday waxa laga yaabaa markii waddanka lagu soo noqday inaad arki lahayd nin 15 jir ama 20 jir ku dhow oo dugsiga fasalka koowaad la qorayo dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha iyo kuwa shaqeeya waxay maalmaha fasaxa ee jimcaha u nasasho yimaadaan goobo kala duwan halka dhalinyarada yaryar loo geeyo si waxbarashada uga nastaan goobaha lagu ciyaaro ee isla Hargeysa gudaheeda ka binaysan waayeelka iyo sidoo kale dhalinyarada runaatina waxay dhankooda u sheekaysi yimaadaan goobaha laga cabashaha iyo cuntooyinka fudud si dhankooda ay isku weydaarsadaan afkaar kala duwan isla markaana uga nastaan shaqada iyo waxbarashada ay ku soo jireen toddobaadka intiisa kale goobaha ganacsi ee shacbigu ku soo dhiiradeen ugana maarmeen in socdaal dheer u galaan wadamo shisheeye waxa ka mid ah goobaha lagu iibiyo dahabka oo noocyadiisa kala duwan si fudud shacbigu uga heli karaan iyagoo ku sugan dalkooda iyo magaaladooda sida meeladan ganacsi oo u gaara dahabka fursadii siiyey inaan xog ka ogaado qaabkay u iibiyaan iyo sidoo kale adeeg ay bixiyaan meheradayada waxa weeyaan maryare gool meets oo ku taala bartamaha magaalada Hargeysa waxaanu iibinaa khaasanta dahabka oo aanu ka keenno dalka dibadiisa gaar ahaan magaalada Dubai waxa noo saamaxay waad arkaysaa Faysal Fifoy dahabka cid ilaaligaysa ma jirto waan shaqaynaynaa waxaana noo saamaxay waxa weeyaan nabadgelyada iyo kala dambeynta ka jirta Jamhuuriyadda Soomaaliland Faysal Maxamed Aadan Faysal Fifa TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa.